waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane الرحيم الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta inta waxaan soo gudbin doonaa hadii Allah uu taloogalaado mowduuc muhiim ah oo bulshada muhiim u ah mowduucaas oo ku saabsan waxyaalaha chemicalka oo gabdhuhu ay jirkooda ku cadeeyaan oo caalamka dhan dhibaato badan ku haya qaasatan ummadeena Soomaaliyeed. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa fursad qaali oo maanta inta siisay xarunta ogaal xarunta aqoon baarista iyo wacyigelinta bulshada ee ogaal marka waxaan ka hadli doonaa hadii Allah uu taloogalaado barnaamijkaas markaan ka hadlayno adduunyadan aan joogno waxaa jiray isbeddello fara badan oo bini'aadamku sameeyay tadawurro fara badan qarniyadii ugu dambeeyay sida qarnigii 19aad iyo qarnigii labaatanaad oo kale waxa la yiraahdaa qarnigii kacdoonka warshadaha iyo qarnigii kacdoonkii dhaqaalaha sidoo kale qarniga 12aad isna wuxuu ku suntan yahay waxa la yiraahdaa qarnigii technology-ga casriga kacdoonkii technology-da iyo sidoo kale waxa la yiraahdo revolution of lifestyle waxa la yiraahdaa ayaa jiray oo ah in ay bulshadu isku sameyso change lifestyle-keedii iyo qaabkeedii qoys ahaan iyo shakhsi ahaan iyo waxa la qaabku dhaqmi jirtay inay isbedeladaas marka farada badan oo ay sameeyeen caalamku sameeyay ayaa waxay keeneen kuwa wanaagsan iyo kuwa aad u xun kuwa wanaagsan oo kale for example hadaan ka soo qaadano tusaale ahaan waxa kamid oo kale dadku inay exercise sameeyaan jirkooda qoraan isqurxiyaan ayaa kamid ah waxa kamid oo kale dadku inay cunno dheelitiran oo nafaqo leh cunaan oo kale kamid ah waxa kamid ah qorsheynta qoyska oo sida wanaagsan oo diinta ay uga soo kale loo isticmaala kamid ah waxyaalahaas oo kale waxay kamid yihiin qaybta dhinaca wanaagsan ee waxyaalaha lifestyle-ka dhahayo adduunka hadda ku mashquulsan yahay waxaa jira ayagana kuwa yaala kale aad u xun oo bulshada dhibaato fara badan u geystay dhinac diiniyana ku xun dhinaca bulsho dhaqan ahaaneedna ku xun dhinaca caafimaadna ku xun waxyaalahaas oo kale waxaa kamid ah inay dadkii keeneen inay khalaaqdi Ilaahay iyo wixii sidii Rabbi Raxmaan uu abuurtay ay bedelaan waxyaalahaas waxaa kamid ah in dadka ay sameystaan inay abuursi bedelaan oo ay sameystaan wax loo yaqaan search plus isku sameeyaan oo ay plastic isgeliyaan wajigoodii iyo qaabkii isku Israel ay bedelaan waxa kaloo kamid ah inay dadkii ay isku sameeyaan ay naaso oo kala gabdho kale inay abuurtaan oo kale naaso bacrinsan mid aan lahayn oo kale gabadhii kale ayagana ay waaweyn yihiin in ay iska yareeyaan oo kale kamid ah waxa kale kamid oo kale in ay sameeyaan in raggi ay wax loo yaqaan transgender wax la bini'aadamka isku sameeyaan oo ah in ay raggi ka guuraan oo ay aadaan dumar oo ay dumar iska dhigaan oo ay naaso bacrinsan naaso ay sameystaan waxa kale kamid ah in ay gabdhihii sidoo kale ayagana ay ka guuraan ragnimadii oo hormoonkii ragga ay isku duraan dumarnimadii ay ka guuraan hormoonadaas oo loo yaqaan testosterone hormoonka dumarka oo kale siina yeelato astaantii ragga oo kale codkeedii weynaado hab dhaqankii ninka la soo baxdo oo kale ayaa jirtay oo la sameeyo sidoo kale raguna sidoo kale inay hormoonada dumarka isku duraan oo kale oo uu kamid yahay progesterone hormoonka loo yaqaan oo kale oo ay qaabkii dumarkii codkoodii waxoodii ay matalaan oo dumar iska dhigaan kuwaas dhan aan ka sheekeynayna waa waxyaalo aad u xun bini'aadamkana aan ku fiicnayn caafimaadkana u fiicnayn caalamka oo dhan gaala iyo muslim qof diin iyo qof aan diin lahayn inta ugu badan bulshada ay hadal hayso dhibaatadiisana la arkay waxa marka maanta inta anagu sidii goonida uga hadli doonaa hadii Allah uu dul ogolaado mid anaga bulshadeena aad ugu badan oo ah waxyaalahan iscadeynta loo yaqaano whitening skin ama skin lighting ama skin brightening wax loo yaqaan ama skin bleaching oo skinka in la fiiqo maqaarka la fiiqo oo la iscadeeyo madowgii laga tago waxyaalahaas aan ka hadli doonaa oo dhibaato aad u fara badan bulshadeena Soomaaliyeed ku haysta qaasatan hablaheena iyo dumarkeena Soomaaliyeed marka waxyaalahaas aan ka hadlayno marka wax yar waxaan rabnaa inaan ka taabano maqaarku waa xubinta ugu weyn maadaama asaga ay tahay wax dhibaato loo geysanayo maqaarku waa xubinta ugu weyn oo qofka bini'aadamka Ilaahay ugu sameeyay
celcelisaan average ahaan waxaa la yidhahdaa waa 2 meter square ayaa la yidhahdaa. jirka bini'aadankana wuxuu u qabtaa shaqooyin aad u fara badan oo ilaahay subxaana qadra u sameeyey. waxyaalahaas uu jirka bini'aadanka u qabto waxaa ka mid ah heerkulka jirka oo kaleeto, temperatureka inuu controlo maqaarku. waxaa kaloo ka mid ah inuu qabowga, kulaylka, inuu ninkan la yidhahdo asaguna sidoo kaleeto controlo qofka bini'aadanka inuu dareemo. sidoo kaleeto waxaa ka mid ah inuu naga celiyo falaaraha cadceedda ama sunlight wax loo yaqaano ama UV loo yaqaano, inuu asagana naga celiyo oo noo controlo si dhibaato aysan ugu geysan jirkeenu. maqaarka sidoo kaleeto qaabilsan waxyaalaha kaloo sidoo kale maqaarku shaqooyinka uu bini'aadanka u qabto waxaa ka mid oo kaleeto sidoo kale maqaarku wuxuu ka difaaca qofka bini'aadanka. waxaa kaloo loo yaqaano UV radiationka oo sidoo kaleeto ka difaaca. waxaa kaloo ka mid ah maqaarka shaqooyinka uu qabto wuxuu noo soo saaraa maado midabka noo ilaaliso loo yaqaano melanin la yidhahda ayuu noo sameeyaa. waxaa kaloo ka mid ah difaaca jirka bini'aadanku qayb ka mid ayuu sidoo kaleeto maqaarku soo saaraa oo seelashaas qayb ka mid ayaa ku yaala. waxaa ka mid oo kale maqaarka qofka jirka bini'aadanka 70 iyo above waxa waaye waa biyo qofka bini'aadanka jirkiisa ka kooban yahay ama ka samaysan yahay. biyahaas jirka bini'aadanka waxaa ku celiya waa maqaarka. shaqooyinkaas iyo shaqooyin kaloo fara badan ayuu maqaarku qabtaa oo meeshaan kusoo koobi karin. shaqooyinkaas ayaa marka dhibaato fara badan maqaarka intaasoo shaqo qabanayay ayaa dhibaato fara badan loo geystay, lagu tacadiyey. marka asaga ayaan ka hadli doonaa. dhibka iyo waxyaalaha nagu sababay inaanu ka hadalnana waxay ka mid tahay kiimikaal khatar ah oo bini'aadanka khatar ku ah oo cudurro iyo xanuuno aad u xunxun keenta ayaa waxyaalahan la isku cadaynayo skin bleaching loo yaqaano maqaarka lagu fiiqaayo ama skin whitening loo yaqaano ayaa lagu soo daray. waxyaalahaas marka chemicalka ayaan waxaan rabnaa inta aan ka gaarno in aan ka hadalno haddii Allah uu dalo ogolaado. waxyaalahaas waxaa ka mid ah oo sida la ogaaday markii baaritaan lagu sameeyo waxyaalahan skin whitening lagu sameynayo maado loo yaqaano hydroquinone. maadadaas hydroquinone waa maado aad khatar u ah oo jiritaanka iyo nolosha bini'aadanka aad khatar ugu ah. waa maado structure ahaan ka samaysan basin oo ring basin ah. gacanka koowaad iyo gacanka afraad waxa uga dhigan hydroxide oo ayna ah qayb loo yaqaano hydroxide kan aad wada taqaanaan oo acid ah. maadadaas marka waxay ka kooban tahay compound ahaan waa acid iyo basin la isku daray. Soomaaliduna si badan ayay u taqaanaa acidka iyo maxaa la yiraahdaa basinkaba waa laba shay oo wax guba. waliba qaybta acidka strong waxa waaye dadka waa gubtaa maqaarkiisa iyo dharka wax walba way jarjartaa. basinkana nigama sheekeynayo waa taqaanaa. baasinka sidiisa ahaan asal ahaan inta wax lagu darana waxaa ku jirta maadooyin loo yaqaan carcinogenic oo ah maadooyinka kansarka qofka bini'aadanka ku sababi kara dhibaatana ku keeni kara jirka qofka bini'aadanka. marka maadadaas oo aad iyo aad u khatar badan ayay keentaa. maadada dadka soo saaray ama kambaniyada iskale waxay ku xayisiiyaan waxay dhahaan waxyaalaha loogu talagalay waxay dhahaan age spot waxyaalahan oo waayeelnimada ay keento duubka da'du ay keento ayaa lagu daweeyaa. waxay kaloo dhaheen waxaa lagu yidhahdaa melasma wax loo yaqaano oo ah maqaarka dhibaatada madowga ay u keento qoraxda ama ay u geysato ayaa lagu daweeyaa. waxaa kaloo ka mid ah colosma wax la dhahaayo oo ayana madow iyo waxyaalo kale oo jirka oo dhibaato ay u geysto waxaan loo yaqaan qofku hormonal change uu jirkiisa ku dhaca sida hooyada markay uurka qaado kaleeto hormoonadeeda isbedela jirkeeda qayb ka mid oo dhan iyo maqaarkeeda madoobaada. waxyaalahaas lagu daweeyaa bay dhaheen ama marka hooyadu ay qaadanayso kaleeto waxyaalahan dhalmada lagu control loo yaqaano pill hormone loo yaqaan kaniiniyadaas ayaa ayana ka mid ah ayaa lagu daweeyaa. waxaa loo yaqaano liver spot ayaa lagu daweeyaa bay dhaheen iyo waxyaalaha maqaarka injury-ga ayaa ku keeno dhaawac markuu ku yimaado intaas ayaa lagu daweeyaa bay dhaheen dadka soo saaray iyo dadka xayisiiyey iyo dadka ganacsada. laakiin arrintu intaas ma ahan way ka duwan tahay. baashan waxay sababtaa horta cudurro aad u fara badan intaasoo dhan lasoo sheegay cagsigeeda ayay sababtaa iyo inta laftigoodaba ayay qofka bini'aadanka ku sababtaa. waxay qofka bini'aadanka ku sababtaa horta inuu qorraxda u nuglaado oo qofku cadceedii ama fallaarihii qorraxda uu iska caabin waayo ama uu iska celin waayo. waxaa kaloo ka mid inuu qofku uu u nuglaado qofka jirkiisa iyo kaleeto waxyaalahan radiationkii oo kaleeto. waxaa ka mid oo kale qofka jirkiisa inay ku samayso wax loo yaqaan hyperpigmentation oo ah haaro inay qofka jirkiisa ku samayso. qaybo ka mid ah sidoo kale discoloration inay qofka jirkiisa ku samayso oo ah qaybna inay ka dhigto blue qaybna madow ay ka dhigto kaleeto ayaa ka mid ah. waxyaalaha lagu arko kaleeto waa maxay loo yaqaano ku samaysa skinka irritation inay ku samayso cuncun iyo redness guduud ayagoo lala xiriirinayo wax loo yaqaano dermatitis oo ah inflammation ama caabuq in qofka jirkiisa ay sidoo kale ku rido. waxaa ka mid oo kale skinka waxay ka dhigtaa dry waxa oo ah qallayl in jirkii skinka qallayl ay ka dhigto. waxaa ka mid oo kale jirka markuu kala ku samaysaa cracking wax loo yaqaano dildilaac in jirka ku abuurto kale iyo maqaarkii.
waxa kale oo kamid ah jirka ku sababta ugu dambeyn inay bleeding uu keeno oo markuu jirkii cracking ama jeexjeexmo dry uu noqdo in meelaha qaarkood dhiig bax uu ku yimaado jirkii oo kale maadadan waa maada aad u xun waa maada qatar waxyaalaha kale oo dhaawacdo waxa kale oo kamid ah oo jirka bini'aadanka dhaawacyada u geysato kale waxa kamid ah liver ko kale iyo xubnaha dhaawac u geysto waxa kamid ah kidneyga kaliyaha ay dhaawacay iyo problemyo fara badan u geysataa waxa kale oo kamid ah maskaxda ay u geysataa waa maada qatar u ah sida la ii sheegayna kareemada ay gabdhaha Soomaalidu isticmaalaan ama rag ka noqdeen Soomaaliya gudaheeda lagu isticmaalo ayaa maadadaas ku jirta oo la xaqiijiyay kareemadaas ay bulshada Soomaaliyeed isticmaashaan ama hablaha Soomaaliyeed inta badan ay isticmaalaan maadadan wadamada caalamka inta ugu badan dhan waa laga mamnuucay sida Europe oo dhan waa laga mamnuucay waxa kale oo laga mamnuucay Asia waa maada qatar ku ah qofka bini'aadanka jirkiisa oo dhan meelahaas oo dhan ayaa laga mamnuucay marka maadadaas qatarta ayaa ku jirta oo intaas oo dhibaato geysanaysa waxa kale oo kamid ah maadadan waxyaalaha kale oo dhibaatada oo kale oo ku jirta kareemadaas la isticmaalo ama waxyaalaha la isku cadeynaa waxyaalaha horta la isku cadeynaa kaliya kareen ma ahan waa kareemo iyo lotions waxa kale oo hadda soo baxay irbado la isku dhufanayo oo injection ah oo la qaadanayo qofka cadeynayo waxa kale oo jirta wax loo yaqaan kaniiniye caadi oo la dhaq oo la laqaayo oo tabletka waxa kale oo jirta syrup oo sharoobo la cabayo ayaa jirta maadooyinkaas dhan waxa marka lagu soo daraa maadooyinkan hadda aan sheegayo hydroquinone iyo maadooyin kale oo la dagaalamayo maadada midabka ee maqaarka noo soo saaro oo melanin loo yaqaan maadaas marka maqaarka lagu shubo oo qofku uu marsado skinka markii la mariyo waxay dilaysaa seelasha loo yaqaan melanocytes oo soo saarta maadada melaninta loo yaqaan markii maadadaas seelashas ay joojiso sidoo kale maadadan waxay ku sameynaysaa deactivating ay ku sameynaysaa hormoon loo yaqaan thyrosinase hormoon la dhahayo ay joojisaa hormoonkaas oo ka qayb qaata in ay bacrimiso ama ay soo saarto la soo saaro maadada melanin marka hormoonkaasna way deactivation ka dhigaysaa shaqadiisa ay joojinaysaa waxay kale oo dhibaato ku sameynaysaa seelashii laga soo saarayay oo melanocytes loo yaqaanay seelashaasna way dilaysaa unugyada way dilaysaa maadadaas markay sidaas ay samayso oo maqaarka waxay kale oo ku sii sameynaysaa in ay dhaawacdo dhan maxaa la yiraahdaa neerfayaasha qofka bini'aadanka kadib waa sun waxay u gudbaysaa xididadii markay qaato waxay raacaysaa circulationkiisa raacdo waxay tagaysaa wadnihii wadnaha markay tagto sidoo kale waxay sii gaarsaa maskaxdii jirka oo dhan systemic wise wax allaala wixii system oo jirku lahayo dhan bay maraysaa maadada sunta liverkii mare wadnihii mare meel walba ay maraysaa nigama sheekeynaa circulationka intaas oo dhan ay dhaawac u sii geysanaysaa marka maadadaas sunta ayaa ku jirto aad u dhib badan oo qatarta waxa kale oo jirta maada taas ka sii daran ayaa iyadoo jirta oo kale oo ku sii jirta maadooyinka la isku cadeeyay ama dadku ay isku sameeyaan waa maadada mercury loo yaqaan waa heavy metals maadadaas waa research la sameeyay waxa wadanka Mareykanka hay'adda u qaabilsan cunnada iyo dawooyinka la yiraahdo Food Drug Administration FDA ee Mareykanka iska leeyahay ayaa waxay ka sameeyay gobollo fara badan oo ogaatay inay qatartaas ku jiraan kareemadaas ay dadka isku cadeeyaan soo galootiga ay wadankooda jooga iyo sidoo kale midii ugu dambeysay research ugu dambeeyay waxay ka sameeyeen qaybta waaxda caafimaadka ee Minnesota gobolka Mareykanka ayaa sameeyay qaybaha dadka soo galootiga Soomaaliyeed dadka kale Asiaanka ay joogaan iyo dadka kale Latin America ka yimid ay ku sameeyeen waxay soo aruuriyeen kareemo gaaraya 27 gaaraya looshimo waxyaalaha la ismariyo way baareen 27 xabo waxa laga helay mercury hay'adda FDA waxay ogoshahay waxyaalaha la ismariyo inay ku jirto 1 parts per million wax ka yar in ay ku jirto waxyaalaha la ismarinayo 27 xabo marka kurti waxa laga helay suntaas ayaa laga helay mercuryga oo qatarta ah afar kareen oo marka ugu caansan oo kuwa Soomaalidu marsadaan oo gabdhaha Soomaalidu marsadaan ayaa ku jirtay oo kareemadaas waxa kamid ah kareen dhaay aqdir la dhahay ayaa ku jirtay kareenkaas waxa laga helay mercury ku jira wuxuu ahaa 135 parts per million oo mercury ayaa laga helay oo qatar oo qofka bini'aadanka dhaawici karta waxa kale oo laga helay kareen kale oo la dhahayo fasco la dhahayo Soomaalidu ayaduna gabdhaha iyo hablaha Soomaaliyeed isticmaalaan oo asagana ay ku jirtay 4600 parts per million oo asagana oo mercury ayaa ku jirta
waa arki kartaan xaddiga qofka caafimaadkiisa loogu talagalay oo la dhahay 1 wax ka hooseeya meeshaan 4600 parts per million ayaa ku jirta. waa arki kartaan xaddiga intay la eg tahay. waxaa kaloo jirta kareem asagana la dhahayo lemon herbal cream la dhahayo asagana ay ku jirto 33,000 parts per million oo mercury asagana ay ku jirto. waxaa kaloo jirta cream la dhahayo diani oo asagana ku jirta 4,180 parts per million oo maadadaas ay ku jirto. kareemada kale oo qatarta leh ee maadooyinkan laga helo horey aan usoo sheegay hydroquinonta iyo maadadan la dhahayo mercuryga ay ku jiraan. waxaa kamid dermofate kareemka loo yaqaan oo Soomaalidu aad u isticmaasho iyo benofate waa kareemo qatar ah oo ay Soomaalidu inta badan iyo hablaha Soomaaliyeed ay adeegsadaan. mercuryga marka muxuu ku sababaa qofka bini'aadanka ama uu sameeyaa? mercury waa midka ugu xun, wuxuu sameeyaa uu dhaawacaa dhan saan ognahay waxa loo yaqaano systemka ama dreamka systemka qaabilsan laba qaybood loo qaybiyaa central nervous system iyo peripheral nervous system CNS and PNS. labadoodaba marka waxay u geysataa dhaawac fara badan iyo u geysataa maadadan sunta markii la mariyo sidaan sheegay waxay way qaadaysaa systemka la geynaa, waxay tagaysaa circulationka dhiigga raacaya maskaxda la geynaa unugyada maskaxda bay dhaawacaysaa. sidoo kale peripheral systemka kuwi loo yaqaanay ee caadiga xididada maraya qofka bini'aadanka jirkiisa ayay sidoo kale dhaawacaysaa. keliyahayna dhaawacdaa. research sax ah oo la soo wada ogaaday ayaa lagu ogaaday dadkan keliya badan iyo failure ayay qabaan oo ay ku sameeyay intaasoo dhibaato ay qofka bini'aadanka marka u geysataa. marka kareemadaas iyo kareemo kale oo fara badan ayaa jirta. bulshada Soomaaliyeed waxaan marka ka codsanaynaa gabdhaha Soomaaliyeed maadadaas marka psychological problem marka qofka ku sababto oo neerfaha dhaawacdo waxaa kugu dhacay psychiatric wax la dhahayo oo in problem iyo waali inuu soo wajahdo ay kamid tahay depression iyo anxiety walaac iyo khalkhal iyo balaayo inay kugu dhacdo. dhibaatadaas oo dhan bay marka qofka bini'aadanka ku sababtaa. marka waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed tala ahaan maada kale waxaa jirta in loo yaqaan steroid aan naga hilmaamin oo ayna qatar ah oo ayna maadadan ku jirto loogu talagalay maqaarka in lagu daweeyo laakiin ayadoo laga soo badiyay xajmigeeda in ka badan laga soo badiyay ayaa jirka lagu cadeeya kareemadana way ku jirtaa ayana intaan dhibaatada aan soo sheegnay ay sababtaa. labada maado oo soo sheegno oo loo yaqaan hydroquinone iyo mercuryga waxay sababaan maadadaas waxaan cuduradan kuwa ka sii xun oo kansarka ay sababaan oo fast one ah maadooyinka dhan oo ay ku jirto. marka waxaa kaloo oo jirtaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inay waxaas iska ilaaliyaan oo ay ka fiirsanaan waxa ay marsanayaan wax kiimikaal oo maadooyinkan ku jira inaysan isticmaalin ayna iska akhriyaan waxa ingredient-ga shaygu uu ka kooban yahay iyo levelka qof shaygu uu ku qoran intaba in la iska akhriyo oo la iska controlo. marka koobaad waan ugu talinayaa. marka labaad waxaan rabaa inaan dhowr qolo la taliyo ayaan rabaa ugu dambeyn oon ku soo gabagabeeyo muuqaalkan. koo waxaan rabnaa inaan gabdhaha la talino waxaan leenahay gabdhaha Ilaahay ka cabsada waxaan waa wax sun ah caafimaadkaaga uma fiicna intaasoo dhib oo aan soo sheegnay ayuu keenayaa mustaqbalkaaga iyo noloshaada iyo caafimaadkaaga dhan iyo riski ku yahay. wax diinta ku fiicanna maahan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay walaa taqtulu anfusakum inna Allaha kaana bikum raxiima ayuu leeyahay nafsiga hagaan walaa tulqu aydiikum ila tahluka. sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aydiis quraanka ku leeyahay nafsadiina iyo gacmihiina ha ku halignina nafsadiina ayuu leeyahay gacmahaaga halaag iyo balaayaha ku doonan intaasoo cudura iyo intaasoo dhibaato gacmahaaga ku raadsanin. quruxda Ilaahay baa sameeya qofku wuxuu isku qurxin karaa dhaqankiisa iyo wanaagiisa ayuu isku qurxin karaa. waxaan sidoo kale aan leenahay waxaas oo dhib ah hadhow waxa way hooyada waxay dhibaato u keeni kartaa oo kale cunuga markay nuujinayso ama ilmaha markay uurka ku sido circulationka hooyada markay ilmaha uurka ku sido kale waa isku xiran yihiin. ilmihii wixii oo dhan oo sunta waa u tagayaan waa ogtiin waa xirsan ilmaha balaasantay dhiigiya qaadaya suntii asagana kaliyihiisa ilmay dhibaato ku dhacaysa maskaxdiisina dhibaato gaarayso. ilmo culayskiisa yar yaha dhalan kara ilmo waxa dhalan kara maskaxda problemka qaba ayaa dhalan kara. hooyada ilmaha markay sidoo kale nuujinayso sunta oo ogtiin caanaha waxa laga sameeyaa dhiigii ay la socotay suntii hadhow caanaha soo raacaya kadibna waxa waa ilmihii sidii ugu soo gudbaya intaasoo problem ayuu leeyahay. intaas waxaa sii dheer mid kale qarash ayay ninkan la yiraahdo problem wuxuu leeyahay economic problem oo ah in hooyadii waxa la ii sheegay in gabdhuhu ay bishii ama markay marsanayaan ba lacagta ugu yar ee loo isticmaalay taa $50 kuwa kale tan ay $200 iyo $100 ay waxyaalo isku dardaraan qaaliya oo jirkooda ku cadeeyaan intaasoo lacag in lagu lumiyo ayaa gabdhaha waxay dheen marka waxaan ugu qasbay ragga ayay dhaheen ruuxantii waxaan leenahay gabaray walaalay macaanay nin iyo rag iyo wax la yiraahdo nafsadaada iyo noloshaada dhan qatar ha u galin noloshaada adaa iskale maqaarkan adaa iskale ammaan ugu yahay qurux hadaa rabtid qurux Ilaahay waa sii gabdhaha Soomaaliyeed midabka ay leeyihiin baa midab ugu qurxoon
diinta iyo maxaa la yiraahdaa dhaqanka wanaagsan iyo shakhsiyadda wanaagsan iyo dadnimada iyo qofka iyo kartida iyo aqoonta intaas isku qurxi oo jirkaaga iyo maxaa la yiraahdaa dadnimadaada ku qurxi waxaa jira waxyaalo kale oo quruxdu waa shay fiican ilaahayna wuu ammaanay qofka bini'aadamkana way u fiican tahay waxyaalaha kaleeto oo baneeyay isku qurxi waxyaalaha kaleeto qofka bini'aadamka uu isku qurxin karo oo isticmaal waxyaalo kale natural ah jiro oo dhibaato kaaga imaanayn oo khalqiga ilaahay iyo taqyiir li khalqi illah aan ahayn oo kugu sameeyay marka taas in la isticmaala ayaan rajeynaya wiilka gabdhaha ku dhiirigelinaya waxaan leeyahay gabadha waxaan ismarisa waxay qabtaa problemna aad u fara badan iyo dhibaato aad u fara badan gabadha ilmihii sun cabsiinaysa jirkeedii maskaxdeedii xanuunsan tahay psychiatric problem iyo depression ka anxiety qabta waxa loo yaqaan qabta maxaa la yiraahdaa ishek cancer qatar uu ku dhici karo qabta maxaa la yiraahdaa cudurkan loo yaqaano kaliyeeda ay failure ka yahay gabdhaha kale way ka xanaaq badan tahay gabadha diyaanada marsata si loo ogaaday oo maxaa yeelay waxay qabtaa depression iyo anxiety ayaa waxaan laga qaadaa oo dumarka kale ee caadiga marka aad guursato way ka dhib badan tahay waxay kaloo tonikan yira gabadhan ay problemka ay wadato waxa waaye hooyo ma geli karto dab oo waxyaalahan dab looma dhawaan karo cunno ma diyaarin karto wax ma diyaarin karto ma qaban karto jiko badan ma geli karto dhib ayay waxaas oo dhan ku yahay marka hooyo sidaas ay hadhow carruurteed waxba u qaban karin adiga wax ma kuuma tarayso waxa kale oo kamid ah hooyo maalin kasta biil gooniye jirkeeda u baahan yahay oo rabta qarash intaas leeg inay geliso waa sidoo kale waxa kamid ah chemicalkan qofka bini'aadamka markuu jirkiisa ka shaqo qof la noolaan karo oo la seexan karo maahan qofka caadiga uu ka shiir badan yahay uu ka qormoon badan yahay dhididka ka soo baxay maxaa yeelay seelasha jirkiisa ayaa dhintay seelashuna waxay soo saarayaan dhidid iyo dhacaan aad u shiir badan ayuu soo saaraya qofkana hadhow inuu la noolaado oo gobol uu kula seexdo aad ayay dhib u tahay marka waxyaalahaas oo dhan oo problemo oo dhibaato oo qoyskaagii iyo dad dilaayo oo hoos u dhigay ayaa hooyada ay gabadha waxaas marsatay laga dhaxlaa marka gabadha intaas oo problem qabta oo intaas oo dhibaato qabta oo intaas oo dhib la daala dhacaysa in aad guursatid oo ku dhiirigelisid waa wax adigana dhib kugu ah bulshadana dhib kugu ah maxaa yeelay waa wax cawaaqib dambe reer marka intaas oo musiibo ku dhacanto hooyo kansar ku dhici karo joogto oo hooyo kaliyeedii dhibaato ku jiraan joogto oo hooyo depression qabta joogto oo hooyo dhaqaalaha u naxayn joogto oo inta oo hooyo macallin waxa la isku kalsoonay oo low self esteem ah oo aan isku kalsoonay ilaahay iyo sida uu qalqay iyo sida uu abuuray isku kalsoonay waxa aad ku filaysid baa wax iska yara rag baa marsanaya ayaa la sheegay iyana sidoo kale gabdhaha kaliya ka daba qaadan raggaasna waxaan leeyahay wax kulli u sheega ma aqaan ilaahay ka cabsado waxyaalahan iska dhaafa wixii ilaahay nii sameeyay iyo qaabka ilaahay nii abuurtay taas ayaa nagu filan ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraan kulliye walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim ayuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay insaankayga iyo dadkayga waxaan ka abuuray abuuris mid ugu wanaagsan ayaan ka abuuray buu Allah subxaanahu wa ta'aala leeyahay marka ilaahay hadduu kuu sheego abuuris mid ugu wanaagsan baan ka abuuray uu ku dhahay waxa kale oo soo raadsid oo jirkaaga aad u bedeshay ayaa kulliba waxay la tahay wax aad ninka la yiraahdo u xun oo aan wanaagsanayn oo adigana cawaaqib xumo kugu keeni kara adduunyadana intaas oo problema wadata aakhirana dhibaatay leedahay ilaahay khalqigiisa dhan baad bedeshay oo waa lagu xisaabtamaya marka intaas ayaa ninka la yiraahdo kula hadlaa waxaan kaloo rabaa fariin inaan u diro dadka bulshada Soomaaliyeed dadka isticmaala maxalliga saxaafadda iyo sidoo kale dadka xigmadaha leh dadka wax qora abwaaniinta qorayaasha dadka bulshada arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo loo yaqaan social activist ee ka shaqeeya dhamaantood in loo wada kaco oo barnaamijkaas laga hor yimaado oo gabdhaha laga wacyigeliyo oo bulshada laga wacyigeliyo tan kale tan waxa waaye aan rabo inaan ayna fariinta u diro dadka waxyaalaha ka ganacsanaya wadanka soo gelinaya chemicalka ay qatarta ku ah ee gabdhihii iyo dadkii bulshadii eber ka dhigay in ay ilaahay ka cabsoodaan oo waxyaalaha iska dhaafaan ganacsigooda waxyaalo kale ay ku bedeshaan oo bulshada faa'iido u leh in ay ninka la yiraahdo dantiisu ka boodiyo bulaanye waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne